الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتلوين kuwa jahaan qof kasta oo muslima oo wax iibiya ama se wax iibsada ama ku shababan oo ku shuqloon ganacsiga noocyadiisa kala duwan. waxaynu ogsoonahay ilaahay subxaana wa tacaala inuu noo soo dejiyey diinul islaam oo ah diin dhammaystiran, shay walbana xukumkiisa caddaysay, mid ay xukumkiisa si gaara u sheegtay iyo mid ay xukumkiisa si guud u sheegtayba. waxa diinul islaam ay leedahay qawaaciddaasi oo shaqaynaysa ilaa yowmi alqiyaama. arrimaha dhici doona ee afcaasha addoomaha ka mida waxay samaynayaan iyo waxay ka tegayaanna xukumkooda laga dheegan karo ama se la hoosgeyn karo. diinul islaam waa diinu alcaqiidati waalcibaadati wa diinu lxayaa. waa diintii caqiidada saxda ah iyo cibaadada toosan iyo nolosha oo dhan. ma aha kamaa yusawiruhaa alcalmaaniyuuna wa atbaacuhum, siday u suureeyaan calmaaniyiinta iyo cidda ku kadsoon ee ku daganta ee daba socda, oo inay tahay diin ka waranta umuur ictiqaadiya la aamino iyo cibaadaad iyo tuquus wakhtiyada qaarkood la sameeyo qura. waxaana inoogu filan daliiltaa tusiya qowl llahi subxaana wa tacaala: qul ina salaatii wanusuki wamaxyaaya wamamaatii lilahi rabi اlcaalamiina laa shariika lah wabidalika umirtu wa ana awal lmuslimiin. waxaad tidhaha nebi maxamedow, salaadayda, gowracayga, noloshayda, geeridayda ilaahay baa leh. ilaahay baa subxaana wa tacaala xaq u leh inaan caabudo kelidii oon u tukado, kelidiina aan u gowraco, gowracan ku weyneynayo aan ugu dhowaanayo. ilaahay baa leh noloshayda iyo geeridayda labadaba. laa shariika lahu, cid ilaahay la lihina ma jirto. ilaahay baana xaq u leh subxaana wa tacaala inuu maamulo. diin lislaam dadka guurkooda iyo ganacsigooda iyo mucaamalaadka dhex mara dhammaantoodba way ka hadashay, waxaana u dhigtay sida ugu fiican ee dadka diintooduna ay ugu badbaadayso, bal ugu kobcayso, noloshoodana adduunyana ay ugu hagaagayso, dhibaatadeeda iyo kadeedkeedana ay uga badbaadayaan. mowduuca ku saabsan ganacsiga iyo ganacsatada waa mowduuc aynu odhan karno awlathu shariicatu lislaami ihtimaaman baaliqa. shariicada islaamku waxa ay siisay tixgelin aada iyo aada u xeel dheer. kelimatu atijaara waa kelimad qur-aan kusoo noqnoqotay, iyo kelimatu lbeyc iyo kelimatu shiraa. kelimatu atujaar waa ganacsatadana waa kelmad in badan ku xusan axaadiida nabigeena calayhi salaatu wasalaam. intaabana waxaa la socda tawjiihaat wa mawaacid wa bayaanu axkaam sharciya, tusaaleyn, waanooyin iyo caddayn la caddaynayo axkaam sharciya, mar wax la diidayo, mar wax la isfarayaba. biidni illaahi subxaana wa tacaala caawa inagoo taa ka duulayna waxaa halkan aynu ka soo jeedin doonaa talooyin aynu ka soo qaadanay kitaabka ilaahay iyo axaadiida nabigeena calayhi salaatu wasalaam, oo taabanaya dhinacyo kala duwan oo khuseeya ganacsiga iyo ganacsatada. qaar khuseeya xagga qalbiga iyo caqiidada, qaar khuseeya xagga axkaamta xalaasha iyo xaaraanta, qaar khuseeya xagga aadaabta iyo dhaqanka suuban ee islaamku uu jideeyey. cidda aynu la hadlayna waa ataajiru lmuslim, waa muslimka ganacsadaha ah
cidda aynu la hadlaynaa waa kullu man yabiic wayashtari, mid kastoo waxna iibiya waxna soo iibsada. arrinka koobaad waxa uu yahay aynu kula talinayno muslim kasta oo ganacsiga ku shuqloon xusnu anniya walmaqsad fi ibtidaa'i tijaara. markaad ganacsi bilaabayso niyadaada wanaaji, qasdi fiicanna ka lahow. waa arrin ay ilaabaan in fara badan oo ka mida dadka ganacsada ah. waxaa laga yaabaa niyadooda iyo qasdigoodu inuu ku ururo xoolo xalaala tabco oo adduunyada inta aad joogto si fiican aada ugu noolaato. laakiin haddii niyo wanaagsan uu raacin lahaa qofku ganacsigaasi uu bilaabayo, niyadaasi fiicani taqlibu alumuura alcaadiyata ilaa cibaadaat. arrimaha mubaaxa ee caadaadka ka mida, niyada fiicani waxay u rogtaa cibaado. waxaanu noqon karaa qofku haddii niyo fiican uu la yimaadiyo maqsad toosan, mid ku cibaadaysanayo ilaahay ugu dhowaanaya ganacsigiisa laftiisa. nabigeena calayhi salaatu wasalaam yihi sida bukhaariya muslimba wariyeen min xadiidi cumar: inama alacmaalu biاnniyaat wa inama likuli imri'in maa nawa. acmaasha niyadaa loo eegayaa, qof walibana waxa uu niyeysta ayuu leeyahy. ganacsigaaga wixii aada u niyeysato ayuunbaad ku helaysaa. waxaad u niyeysataa ganacsigaaga alisticfaafa can الsu'aal, inaad kaga maaranto dadka inaad baridood u baahato. waana maqsad sharciya, ujeeddo sharciya weeyaan taas. waxaad u niyeysataa naftaada inaad ka jarto damaaciga xoolaha dadka ay damaaciyeyso. waxaad ganacsigaaga u niyeysataa alistiqnaa bilxalaali can ilxaraam, xalaasha inaad kaga maaranto xaaraanta. waxaad ganacsigaaga u niyeysataa kifaayat alciyaal, cidda ilaahay masruufkooda uu ku saaray inaad ku fillaato oo aanay dayacmin. waxaad ganacsigaaga u niyeysataa alisticaanata bima taksabuhu cala atasawudi lilaakhira wa taacati rabbi alcaalamiin. waxaad ganacsigaaga ka tabcanayso inaad u kaalmaysato usahay qaadashada aakhiro iyo adeecitaanka ilaahay subxaana wa tacaala. waxaad ganacsigaaga u niyeysataa nusxa lilmuslimiin, inaad muslimiinta daacad u noqoto iyo xilkasoo wanaagooda aada ka taliso. waxaad ganacsigaaga u niyeysataa markaad ganacsiga gelayso aada sii go-aansataa alamra bilmacruufi wاnnahya can اlmunkar fi kuli ma taraahu fi الsuuq min macruufi mudayacin wa munkarin mafcuul. inaad wanaag kastoo la dayacay dadka aada farto, go-aan ha ku noqoto oo aada garanayso. xumaan kasta oo la samaynayana dadka inaad ka reebto aada garanayso. niyooyinka noocaas iyo kuwa la midka haddaad la timaado markaad ganacsiga bilaabayso, shaki kuma jiro inaad tahay caamil fii ariiqi alaakhira, adoo ganacsigaagii ku jira eed haddana aakhiro u shaqaysanaysa. fain istafadta maala fahuwa masiid. ganacsigaagaasi haddii maal xalaala aada ku faa'iido waa dheeraad iyo ziyaado. wain lam tastafid maala fi اdunyaa rabixta alaakhira. haddaanad ganacsigaaga waxba ka macaashin oo wax maali aanu kaaga soo hoyan, niyaadkaa fiican daraaddood waxaad noqonaysaa qof aakhiro macaashay. qof aakhiro macaashayna maxaa ka maqan? arrinka labaad wuxuu yahay raaqib nafsaka ayuha taajir almuslim. naftaada aada iyo aada u eego, ugu fiirso ganacsadaha muslimkaayow. mucaamalaadkaaga oo dhan, foojarada aada qorayso, heshiisyada aada saxeexayso, waxaad ka ganacsanayso, waxaad iibinayso iyo waxaad iibsanayso, cidda aada la tacaamulayso. waclam ana allaha yuraaqibuk.
سي تاسي كوغو سورتا غشنا نفتاده waxaad u sheegtaa ilaahay subhanahu wa ta'ala xaalkaaga inuu la socdo وأعد لكل معاملة تجريها جوابا عندما تسأل عنها يوم القيامة معاملة كستو قناعسي كسابسن وأدقلي سنة وحدو ديار ستات جواب ويوم القيامة والقويدين دونه ولما مالك سيدو النبي قالوا نوشا يقف كلمة سؤالات بالقوي الدينية من أين اكتسبه وفيما أنفقه حقو كتب على مالكا حقو سكبحي إلهي باري فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون إلهي بارتي وركا مهمدي سسوي نوغو موشي ربي قابان كدارتي النبي محمد وحان ويدين دونا دمان تود مكلفين تودن وحي اي سمين جيرين إلهينا سبحانه وتعالى ومدكو دالعانا يوحالكا ومرنا بانو كقرصونين إن الله كان عليكم رقيبا إلهي سبحانه وتعالى وحو يريه ربي سبحانه وتعالى ومدرنكين الله الصعود حقوقا الله يدينا وصرتين يعادكين ويسقوم التهاي وشهدت تعالى قال لي أنا قفك وين قلبي سكبيرت التقوى وعمل بهذا الدين الله كعبسي الدين ترين وكعمل فلا وين أرنت سكعلي سحاران تي شبهاتك وين أرنت نوع سي قلبي سورع يجلسه وين أرنت نوع سي أي صابق نقطمر والبين حق إله إسكايا سبحانه وتعالى وحكستو وسليه هي إلهي رالي كما هو نعيا إنه إلهي سبحانه وتعالى درادي وقتقه أرنك صدحات وحيا هي أيها التاجر المسلم احرص على تعلم أحكام التجارة وأكثر من السؤال قبل إبرام العقود والدخول في المعاملات واحد كده ذا شاب برشد أحكام تجنعسجة فربنا السؤال علماء انت هذا شيء كجلين برشد إيه سؤال شهر رئيسي معاملة إيب أما إيب سشو انت أنا بلابين اسأل أهل العلم قويدي محلال با مسوى حاران إلهي بيري فاسألوا أهل ذكر إن كنتم لا تعلمون أرنت نوعا سوى تكوسور تقلين إيسا حاران تأيي حلاشو إني كوكا العدادان وأتسوق قادو درجة وكشة نبي محمد في حديث النعمان إن الحلال بين وإن الحرام بين حلال يا حرام إني كوكا العدادان وجاهل وانو صابكو وقلنا قان وحارانا إنات سميسادق وان قرانهين أرنتا سوا تكوسا ليس إنات كالقرطة مشتبهاتك وحيابا الشكي قاله إيا وحيابا حلال لمدود ويعدهاي وحانا دوقاتا إنا يواجب تهي معاملة إنا نتكو دقاقين إلا هذا قانو يالطو إنا حلال تهي إنا حاران تهي لا يجوز لك ذلك أرنتاس كوما بنانا أرنتاس واحد كمية علمي واجب ككوغوا النبي عليه الصلاة والسلام يري طلب العلم فريضة على كل مسلم واحد كل قدبان لبا الرموت قناع سيقات كشقين يسو أحكامتي سوا كوبان تاي أحكامته وصول شواهي وكوبان تاي وإن دو فريساتو أد براتو وكتبت مركا لبرا أيو أرديدا كتاب البيوع أدو قناعسدا وإن الله فريساتو أديغا يسيقار واجب كوغو تاي وكوان أرديدا ديغانا يوغا باهي بدن بدبادا دي الدين تادا أي أرنتا نوعا سيا كاغا حران وحي أنا دا قونتي ساهين الدروس تا أد قادتي أنا تكبرنا وين ذا العلم قويدي صاد ولا نقطه لكن هدانا الدروس علم كانت فريسا ولما ما انت إلهي سبحانه وتعالى سهلي وانا دقيسا علمتنا انا وحبا ويدين قناع سناد بلوضي شاكي كومات شيرين الربا عني دونتو
shakina kuma jiro si xaaraana inaad wax u iibin doonto ama aada u iibsan doonto. shaki kuma jiro ganacsigaagu diintaada inuu dhaawici doono, aakhiradaadana dhibaato inuu geysan doono. walihaada baa dadkii naasixiinta ahaa ee gaar ahaan madaxdii islaamka soo maray ay ku khasbi jireen dadka ganacsatada inay bartaan axkaam albayci washiraa, axkaamta iibka iyo iibsashada. suuqana aanay u ogolaan jirin qof aan duruustaa soo qaadani inuu fadhiisto. waxa uu wariyay alimaamu tirmidi raximah llahu tacaala bisanadin xasanahu alalbaniyu raximah llah ana cumara radia allahu canhu qaal laa yabic fii suuqina ila man qad tafaqaha fi ddiin. suuqeega yaanu fadhiisanoo waxba aanu ku iibin qof diinta aqoon u yeeshay, gaar ahaan axkaamta iibka. wa fii riwaayatin laa yabic fii suuqina ila man tafaqaha fi ddiin wailaa akala ariba shaa am aba. war suuqa yaanu fadhiisanin qof aan aqoontii iibka aan lahayn, haddii kale waxaa dhici doonta buuhi cumar ibnu khadaab radia allahu canhu inuu ribada cuno, xataa isagoon doonahay inuu ribo cuno oo jahligu ribada uu geeyo. taas ayaa dhici doonta. arrinta noocaasina maanta waa mid suuqa aada uga muuqata. ganacsatada qaarkood weliba xoolo badan ilaahay uu siiyey, ribadii oo cad oo sarifkooda gashay ayay mucaamaladaa dabadeed ku weydiinayaan. arrinta noocaasiya ka war waa ribadii oo cad, akaluha horey u cuneen, kadib ba ahlulcilmiga weydiinayaan. inay su-aasha horeysaabay ahayd iyo aqoontu. majaalista lagu baranayo, fadhiyada lagu baranayo axkaamta albaycu washiraa, majaalisu dikri bay ka mid yihiin oo markaad fadhido qof ilaahay xusaya baa tahay subxaana wa tacaala oo cibaadaysanaya. oo majaalisu dikri maaha kuwa subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaha illa allahu akbar oo qura laga leeyahay, bal kulu majlisin yudkaru fiihi ma sharacahu allahu subxaana wa tacaala licibaadihi fahuwa majlisu dikrin. gole iyo fadhi kasta oo lagu hadalhayo waxa ilaahay addoomihiisa u sharciyeeyey waa meel ilaahay lagu xusaayo. suu yihi cabdullaahi bnu mascuud radia allahu canhu wa qaala caطaa huwa min ataabiciin majaalisu dikri hiya majaalisu alxalaali walxaraam. majaalista xuska ilaahay waa majaalista lagaga hadlayo maxaa xalaala maxaa xaaraana, kayfa tashtari watabiic, saad wuxuu iibsataa saad wuxuu iibsataa, watusali watasuum watankax watankix watuطalliq wataxuji waashbaha hada, saad u soomaysaa, saad u tukanaysaa, saad u guursanaysaa, saad wuxu furaysaa, saad u xajiyaysaa iyo masaa-isha kale ee axkaamta sharciga ku saabsana shabahda. ganacsatadii muslimiinta ee hore waxay lahaayeen sifaad aada iyo aada u layaab badan. sifaadkooda waxaa ka mid ahaa inay lahaayeen akhlaaqu almuslim ataajir, dhaqanka diintu ay u astaysay, u calaamadisay muslimka ganacsadaha ah. waana ta keentay ummado dhami dhaqan wanaagooda markay arkeen inay diinulislaam soo galaan. waxaa dhaqankooda ka mid ahaa safar ganacsi marka ay galaan inay kaxaysan jireen caalim masaa-isha ganacsiga uga fatwooda. culimada sheegtay waxaa ka mid a ibnu nujaym alxanafi, kitaabkiisa la dhaha albaxru raa'iq. wa kaana tujaaru fi lqadiimi ida saafaruu istasxabuu macahum faqiihan yarjicuuna ilayh. ganacsatadu waxay ahaayeen waktigii hore marka ay safraan kuwa kaxaysta caalim fiqi yaqaan ah oo masaa-isha ay ula noqdaan. wa can aimati khawaarizma anahu laa budda litaajiri min faqiihin sadiiqin. culimadii meesha khawaarizma la dhaha joogeena waxay yidhaahdeen qofka ganacsadaa waxa laga maarmaan waa aanu kaba maarmi karinba fiqi yaqaan, nin axkaamta sharciga yaqaana oo ay saaxiib yihiin, oo had iyo jeeraale ay israacaan, ay wada fadhiistaan, oo yashulu lahu alwusuulu ilayhi, inuu gaadho ay u sahlan tahay.
waxaa laga yaabaa ganacsatada qaarkood inay samaystaan culimadaasi oo ganacsiga mushahar ay ku siiyaan, talada ganacsiya ay siinayaan. arrinta noocaasiya waa arrin laga fiican yahay oo awalan caalimku fatwada ile waa fatwa waxa uu bixinayaae inuu mushahar ku qaataa wax fiican maaha. mar labaadkana wuxuu noqonayaa caalim ciddaa ganacsatada u taliso, oo mararka qaarkood waxaa u muuqanaya maalkii iyo mukhaalafadii ma u caddaysa waxaanay ku jiraan inuu khalad yahay, misaniyo mushaharkaa yar baad iska ilaashataa, biilka carruurtu yaanu go-ine. walaa shaka shaydaanku inuu wasaawis ku farayo qofka iyo shubahaad. adduunyaduna waxay ka mid tahay xadhkaha bani aadamka uu ku ugaadhsado. walihaada culimadu waa inay noqdaan kuwo u furan ganacsatada oo iyagoon dirham ka qaadan iyo diinaar iyo dollar toona ilaahay subxaana wa tacaala daraaddi u saxaaya. markaasaa taladoodi iyo fatwadooduna raad ay yeelanaysa. arrinka afraad wuxuu yahay intaanan taa ka bixin, arrintaasi maanta aada uma muuqato. ganacsatadu alxamdu lilah aada bay u tukadaan oo masaajidada aada bay usoo camiraan, laakiin marka salaada laga baxo in badan iyagoon sunnaysan bay dareeraan. in badanina marka ay sunnaystaan bay baxaan. inta ganacsatada ee darsiga cilmiga ee masaajidka ka socday aadka ay ugu baahan yihiin kusoo hadhaa, waxaa la odhan karaa waa aqaliya wey. taasina waa suuro aan qurux badnayn oo ka turjumaysa zuhdun fi lcilmi waalaakhira wa ragbatun fi ddunyaa, saahiditaan laga saahiday cilmigii iyo aakhiro, iyo kalgacayl iyo hamuun loo hayo adduunyada. wayajib an yakuuna wasfu lmuslimi cala alcagsi min dalik. waxaa waajiba qofka muslimkaa sifadiisu inay noqoto taata khilaafsan, uu noqdo zaahid fi dunya raagib fi laakhira. siduu yihi nabigeenu calayhi salaatu wasalaam, kun fi dunya kaanaka gariib aw caabiru sabiil. markaa sifada noocaasa in la suuliyo ayaa waajiba, oo qofku uu baro naftiisa. waa la bartaa darsiga iyo muxaadarada fadhiisadkeeda iyo in loo sabro saacad ama ka badan oo wax nafta la bari karo. maalmo hore way ku adkaanaysaa waayo umay baran, marka maalmo hore sabir baad u baahan tahay, kadib waad ka gudbi doontaa marxalada adaad jeclaysan doona ku raaxaysan doona. walaa shaka ana maa yatrukuunahu khayru lahum mima yadhabuuna ilayh. shaki kuma jiro waxa ay ka tegayaan oo dhegaysiga cilmiga iyo khayrka iyo aqoonta inuu uga khayr badan yahay waxa ay u tegayaan ay doonanayaan. oo waxaanay ka tegayaan waa alaakhira, waxay doonanayaanna waa addunya. addunya aakhirana siay isku yihiin waa mid qof walo muslimiiba uu garanayo. arrinka afraad wuxuu yahay inu kula talinayno muslim kasta oo ganacsada, rag iyo dumar, ganacsado weyn iyo mid yar, mid hadda bilaabiyo mid muddo dheer ku jiray, waa alitisaafu bilwarac. waxaad ku sifowdaa sifada qiimaha badan ee waraca la idhaahdo. waracu waa maxay? soomaaliga xalaal miirad baynu nidhaahnaa. culimaduna markay macnaynaya waxay idhahdaan waracu waa tarku maa takhshaa dararahu fi laakhira. waa wax kastoo aad isleedahay aakhiru dhibaato kuu soo jiidi doonaa inaad iska dayso, kaasaa warac la idhahdaa. wamaa akarahaa, maxaa ka fara badan arrimaha noocaasa? waracu waa sifo la yaab badan oo qofka xakamaysa oo iska dhaaf xaaraanta cade ka celisa mushtabihaadka, waxyaabaha shakigu uu kaga jiro ee aanu caddayn. waana min afdali maa yutacabadu bihi lilah. waxyaabaha ilaahay addoon loogu noqdo ee lagu caabudo kuwa u fadliga badan buu waracu ka mid yahay. wa min akthar الnaasi xaajatan ila alwarac attujaar. dadka kuwa ugu baahi badan waraca waxaa ka mida ganacsatada, waayo adduunyadii tuwaajihum اdunya wa tuqbilu calayhim.
adduunyadii baa soo wajahaysa oo soo qaabilaysa fiiha alxaraam wa fiiha almushtabahaat wa fiiha alxalaal alwaadix wa minha ma yaduru bاddiin wاlaakhira walow ma'aalan adduunyadaasi soo waajahaysa ee wadadeeda ay istaageen xaaraan baa ka mid a mushtabihaad baa ka mid a mid xalaalnimo iyo xaaraannimo midna aan ugu caddayn oo ka shakisan yihiin waxaa ka mid a mid xalaalnimadooda caddahay laakiin si kale loo adeegsan karo waxaa ka mid a adduunyada mid qofka aakhiradiisa dhibaysa mid diintiisa nuqsaaminaysa baa ka mid a walow asalkeedu xalaal ba ha noqdee marka adduunyada noocaasa dhibaatada ay u geysan karto diintiisa iyo aakhiradiisa waxa uu kaga badbaadi karaa bisifati alwarac waracu waa sifo aada iyo aada qaali u ah dadka in badanoo ka midi cibaado uma yaqaaniin laakiin cibaadaadka kuwa ugu muhiimsan bay ku tirin jireen dadkii hore wanaagsana alimaam yaxya ibnu abi kathiir sida abu nucaym uu ku wariyey fi lxilya wuxuu yidhi yaquulu nnaasu fulanu annaasiku dadku waxay yidhaahdaan hebel baa caabida ninka hebel idha waa caabid oo maxay ku arkeen salaad badan iyo soom badan iyo dikri badan iyo bay ku arkeen wa inama annaasiku alwaric caabidka dhabtaahi oo qofka waraca leh ee aakhiro gaadh ka haya cutba ibnu damrana wuxuu yidhi xadathanii abi faqaala kana yuqaalu laa yucjibanakum siyaamu mri'in walaa qiyaamuhu war qofna hala dhicina soomkiisa iyo salaatuleylkiisa walaakin induruu ilaa waracihi laakiin waxaad eegtaan waraciisa iyo xalaal miiradkiisa siduu xaaraanta isaga ilaaliyo iyo wax kastuu isleeya aakhiru dhib kaaga iman fain kaana warican maca maa razaqahu llahu min alcibaada fahuwa cabd llahi xaqa hadduu yahay qofku qof warac leh xalaal miirad leh oo xalaal miiradka wuxuu ilaahay ku arsaaqay cibaadiina u raaco kaasaa addoonkii ilaahay dhabtahaa ah oo ilaahay subxaana wa tacaala addoonnimadii ilaahay uu abuuray ka soo baxay walihaada baa nabigeenu calayhi salaatu wasalaam waraca uu inoogu baaqay wa aslu lwaraci fi axaadiidi nabiyi sala allahu alay wasalam xadiidu nucmaan ibnu bashiir waraca waxaa asal u ah oo xadiida nabiga ka mida xadiidu nucmaan oo nabigu wuxu uhi ina alxalaala bayinu wa ina alxaraama bayin wa baynahuma umuuru mushtabihaat laa yaclamuhuna kaiiru min annaas faman itaqa shubahaat faqad istabra'a lidiinih wa cirdih wama waqaca fi shubahaat waqaca fi lxaraam nabigu calayhi salaatu wasalaam arrimi wuxuu u qeybiyey saddex shay xalaalnimadiisu ay caddahay oo in yaroo shakiina aanu la socon iyo shay xaaraannimadiisu ay caddahay xaaraannimadiisu aanay shaki lahayn iyo shay mushtabiha oo qofkii aanay u caddayn inuu yahay xalaal ama xaaraan maxaa keenay taa inaanay u caddaan waxyaaba keeni kara waxaa ka mida tacaarud aladila adiladii masaladaa ka hadlaysay inay u muuqato mid iskhilaafsan oo daliilkana wuxuu sheegaya kana wax khilaafsan uu sheegayo sa isaga ula muuqato weeye adiladu sideeda isma khilaafteen waxaa kaloo ishtibaaha ku keeni kara qofka ikhtilaaf alculamaa fi lmasala inay culimada shaygaa isku khilaafeen qaar waxay dhan waa xalaal qaarna waxay idhahdeen waa xaaraan walam yatarajax lahu shay dhinacna lama xoog badan qofkuna markuu halkaa taaganya wuu imtixaaman yahay wuxuu ku imtixaaman yahay inuu hawadiisa raaco oo ka uu isleeyahay maslaxayo dan adduunyaha kugu jirta un isaga uu doorto iyo inuu diintiisa ilaashado waracu ku sifoobo idhaahdo shaygaa mar haddii xaaraan inuu yahayba ay dhici karto walow 10% 100% ha noqotee khalaas waan iska daynayaa anigu xalaasha xalaalnimadeeda caddaha ayaa fara badan taasana anigu samaynaya nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay qofka shaygaa shakiga leh amaan xukunkiisu u caddayn iska daaya in diintiisa iyo sharaftiisu ay u badbaadayso
diintiisa u badbaadayso xaaraan buu ka badbaadaya oo qofka xaaraantii aan caddayn ka fogaanaya tacadna waa uga fogaansho badan yahi qofka shayga xaaraannimadiisu ay shakiga leedahay ku soo dhowaadaana siduu usii sinqaayo maalimo maalinta ka dambaysa xaaraanta cad buu maalinta dambena afka uga geli doonaa siduu nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka uu ku tilmaamay sharaftiisuna way u badbaadaysaayo cidina ku xaman mayso cidina ku sheegi mayso inuu xaaraan ka shaqaysto ama xaaraan waxa weeyaan uu ku tacaamulo maxaa kalaad doonaysaa haddii diintaada iyo sharaftaadu ay ku badbaadaan labada midna adduunya ma goyso oo diinta adduunya ma goyso sharaftana adduunya ma goyso haddii sumcaddu ay kaa dhimato xoolo kastoo aada bixiso xoolahana waa lagaa qaadan kii un baana tahay bilaa sumcadda ahaa marka labadaa haddaad hesho wax kaa maqanayaaban jirin nabigeenu calayhi salaatu wasalaam mar kale wuxu uhi dac maa yariibuka ilaa maa laa yariibuka wax allaala waxaad ka shakida iskaga tag waxa aan shakiga lahayne kuu cad samee nabigu calayhi salaatu wasalaam mar kalena miisaan buu ina siiyey waxyaabaha qaarkood baa laga yaabaa inaanad garanahayn daliilkooda ama daliilkooda uu kaa ishkaal galay oo aadaad u fahmi weydo uu kuu caddaan waayey oo xukumkoodii aada si dhaba u dul istaagi kari weyday nabigeenu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ina siiyey miisaan kale oo intaa ka dambeeya oo aad ku kala saari karto waxaa xun iyo waxa wanaagsan miisaankaasi waa maxay waa qalbuka waa qalbigaaga istafti qalbak wain aftaaka almuftuun qalbigaaga fatwo weydii dadku ha kuba fatwoodaan be qiil kasta ha laguu sheego mar haddaanu qalbigaaga ku xasilin oo aanu ku degin iskaga tag shaygaa waayo nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi aliu maa xaaka fii nafsik wa karihta an yaطalica calayhi nnaas dembigu waa waxa qalbigaaga geli waaye aad ku degi weydo warwarun baad dareemaysaa markaad mucaamalada noocaasa gasho sheekh kasta ha kuu fatwoodo warwar baad dareemaysaa iyo deganaansho la-aan waxaanad karaahiyeysanaysaa in lagugu ogaado haddaanad daliil kaleba helin intaasaa u daliila hadalka aad tidhi ama ficilka iyo camalka aad samaysay inuu dembi yahay culimadu se arrintaa shardi bay u sheegeen shardigaasi waa maxay qalbiga miisaan u noqon kara kala garashada waxaa xun iyo waxa wanaagsan waa alqalbu saalimu min amrayn waa qalbiga ka nabadgalay laba arrimood addasaa'isa walwasaawis waa qalbiga ka nabadgalay addasaa'is xumaanaha qalbiga qofka uu ku yaalaa xumaan uu sameeyo uu indha daraynaya ama waa indha beelayaa miisaan ma noqon karo daxalbaaba dushiisa saaran kalaa bal raana calaa quluubihim maa kaanuu yagsibuun nukitat fiihi nuktatun sawdaa buuri nabigu calayhi salaatu wasalaam mar kastoo uu dambaabo bar madow baa lagu dhufanaya mar kastuu sii badiyo waa sii badanaysaa ilaa barahaasi ay daboolaan qofka qalbigiisa qalbigaa maaha kala leeyahay fatwo weydii waayo qalbigaasi waa indha dareeyaba waa indha laayahayba sidaasoo kale qalbiga fatwada la weydiinaya waa qalbiga ka nabadgalay alwasaawis waxaa laga yaabaa qofku hadduu waswaas leeyahay shayga xalaalnimadiisu ay caddahay adiladu ay tusisay culimaduna ay isku waafaqeen inuu ka shakiyo wasaawistaa taas sabab ugu noqonaysa dadkii hore wanaagsanaa laga soo bilaabo min الnabiy calayhi الsalaatu wasalaam wamuruura bالصaxaabati uma man bacdahum sifadaasi waracu noloshooda aad bay uga muuqatay wajada الnabiyu salى الlahu عalيه wasalam tamra saaqita wuxuu helay nebi maxamed xabad timira oo dhacday cidla la garan maayo in la yaboohiya waajib maaha waa la iska cuni karaa lakin lam yaأkulha muxamedu salى الlahu عalيه wasalam nebi maxamed ma cunin muxuu cuni waayey nebi maxamed lawlaa anii akhsha an takuna min tamri صadqa
la akaltuha haddaanan ka baqanahayn buuhi nabigu calayhi salaatu wasalaam inay ka mid noqoto timirtii zakada. sakadu nabiga xaaraan bay ka ahayd, waan cuni lahaa buuhi nabigu calayhi salaatu wasalaam. may caddayn inay ka mid tahay timirtii zakada, laakiin shubha ayaa jirtay. timirta sakadu meeshii ay taallay meel u dhow ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam ka helay, taasaa keentay inuu ka shakiyo. fatarakaha rasuulu llahi sala allahu alay wasalam tawarucan. nabigu calayhi salaatu wasalaam waa iska daayey, warac awgii baanu uga tegey oo isaga daayey. wa hada abu bakr radia allahu canhu, addoon uu leeyahay baa xoolo soo shaqeeyey. xoolii markuu cunay abu bakar ayuu addoonkii u sheegay xoolahaasi inay ahaayeen xoolo uu ka tabcaday faalin, uu nin u faaliyey fi ljaahiliya islaamka ka hor. weliba waan harowsad buuhi, waan khaldee faalinna maan aqoon buuhi. abubakar wadaca isbucahu fii fiihi fataqaya xataa akhraja jamiica ma fii baطnih. fartuu isgeliyay abubakar radia allahu canhu, waanu iska matajiyey ilaa uu soo saaray wixii calooshiisa ku jiray oo dhan. kumana dambaabsanayn abubakar cunista uu raashinkaasi cunay, waayo ma garanahayn inuu xaaraan yahay, xataa kama shakisanayn, xalaal buu haysta. laakiin wax xaaraani xataa si khaldan ba ha u galee inuu calooshiisa galo ayuu abubakar iska ilaalinayay. liannahu samica annabiya sala allahu alayh wasalama yaquul ayumaa laxmin nabata bixaraamin fii riwaaya bisuxtin fannaaru awlaa bihi, xadiid kacb ibn cujra. hilib kasta oo booli iyo xaaraan kaaga soo baxa naarta ayaa u mudan inay cunto, yanaa naar baa cuni doonta. haddaynu hal tusaale ka soo qaadno taabiciintii asxaabta rasuulka soo gaadhay waracooda, maxamed ibnu siriin radia allahu canhu wa taabici waa ardaygii anas ibnu malik. taraka ibnu siriin ribxa 40,000 fi shayin dakhalahu. abu nucaym baa wariyey fi lxilya, adahabina fi siyar aclaami nubala tarjamadiisu ku sheegay 40,000 oo dirham oo macaasha ayuu waddadaa ka maray. waxaanu uga maray wax dhex galo u ka shakiyey. weliba asari wuxuu yidhi oo aharka ka warinayaa fasamictu sulaymaan aharka warinaya fasamictu sulaymaan ataymi yaquul laqad tarakahu fi shayin maa yakhtalifu fi axad min alculamaa. wuxuu uga tegay 40,000 ee macaashka ah, waxaanay culimadu maanta haddii la weydiiyo aanay iskuba khilaafayn xalaalnimadiisa. ayuha taajiru lmuslim laa yakfi an tatruka alxaraam. kuguma filla xaaraanta un inaad ka tagto. ijcal baynaka wa bayna alxaraami wiqaaya. xaaraanta iyo naftaada waxaad u dhaxaysiisaa teed. utruk maa laa ba'sa bihi fii nadarik khawfa min alwuquuci fi ma fiihi ba'sun. iskaga tag waxaan dhib lahayn haddaad ka baqanaysa inuu ku gaadhsiiyo wax dhib leh. waxyaabaha mushtabihaadka ah ee shakigale iska daa. maanta mucaamalaad badan baa jira oo ahlucilmigu ay isku khilaafeen, oo ganacsatadu marka ay weydiiyaan culimada laga yaabo midba wax inuu ugu jawaabo, midna uu yidhaahdo waa xaaraan, midna uu yidhaahdo waa xalaal. xaaladda noocaasa waxaa loo baahan yahay warac, inuu yidhaahdo low huwa xaraamun waaxida bilmia atrukuhu lilah. 100kiiba hal hadduu xaaraan ya ilahay daraaddii baan uga tegaya. taasaa loo baahan yahay. qofkana wadaciisu marba wuxuu leekaanayaa iimaankiisu intuu leegyahay. arrinka shanaad wuxuu yahay waxaad ogaataa ganacsadow, 2 suuq baa jira. suuqa adduunyo ee adduunyada lagu hayo ee nabigu uu sheegay calayhi salaatu wasalaam waxaa khaldana ka dhaca awgii dhulka ilaahay halkuu u necab yahayba inuu yahay, halka shaydaanku uu ku beedeeyo ku beeddilaacsaday inuu yahay. ee nabigu calayhi salaatu wasalaam uu yihi ha noqonin qofka u horeeye gala, hana noqonin qofka u horeeye ka baxa. taasi maxay tusinaysaa? inaad noqoto qofka u horeeye suuqa soo gelaya ee qofka u dambeeye ka baxaya. hada yadullu calaa xirsin cala addunya.
waxay taasi calaamad u tahay dadaal la xaadlo qofku adduunyada ku bixinayo qofka adduunyada qaabka noocaasa ugu dadaalana shaqi kuma jiro wax badan oo aakhiro iyo arrimeeda wanaagsan kamidii inay seegi doonaan suurtagal maaha qofku labadaba sida ay yihiin inuu u wada helo hada laa yumkin say yidhaahdeen غayru waaxid min ahli اlcilm min aلصaxaabati wagayrihim suuqa labaadna waa suuq laakhira oo suuqa ilaahay subxana wa tacala lagula baayac mushtaro waa meelaha lagu cibaadaysanayo waa meelaha khayrku uu ka jiro suuqan adduunyayaanu kaa mashquulin suuqa aakhiro ka mid noqo ragga ilaahay raganimo uga markhaati kacay ee raga inay yihiin ilaahay uu sheegay yeelana sifaadka ay leeyihiin fii buyuutin adina allahu an turfac wayudkara fiiha ismu yusabixu lahu fiiha bilguduwi walaasaal rijaalu laa tulihim tijaaratu walaa baycun can dikr illah waiqaami الصalaa waitaaءi الzaka ilaahay subxaana wa tacaala masaajidadu ka hadlayay waxaa jooga buu yihi rag baa quluubtoodu masaajidada ay ku xidhan tahay raggaas sifaad bay leeyihin ganacsi iyo iib iyo waxaasi kama mashquuliyo dikriga ilaahay subxana wa tacaala oo diinta oo dhana dikrullahi waa addiinu kullu waa diinta oo dhan diin ullahi kulluha dikrun diinta ilaahay dhammaanteedba waa dikri ilaahay weeye salaadana kama mashquuliyo ganacsi iyo iib sekada bixinteedana kama mashquuliyo talo maxaa taa sabab ugu noqday waxaa sabab ugu noqday liana alaakhira nusba acyunihim aakhira indhahooda hor taalla qof aakhira si fiican u arkay oo u xusuusanina adduunya oo caqli lihina adduunyada ku doorsan maayo suurtagal maaha inuu aakhira u dayaco adduunyadaasi awgeed yakhaafuuna yowman tataqallabu fiihi alquluub walabsaar maalin bay xusuusan yihin oo ay ka baqayaan baqa awgii quluubtu ay isrogrogi doonto oo cunaha ay soo gaari doonto dad badanina baqa awgii indhahooda ay kaga bilibiligsiin doonaan maalinkaasay xusuusan yihin ganacsatadaasi taasaana sabab ugu noqotay ganacsiga xalaashii inaanu ka mashquulin wixii ilaahay subxaana wa tacaala u sharciyeeyey faral iyo sunnaba salaada marka loogu yeedho xay cala salaa xay cala alfalaax ay maqlaan ama ka horba ay soo xidhaan dukaamadooda iyagoo aaminsan inaanay waxba ku seegahayn wax ugu kordha mooyaane oo ballanka ilaahay rumaysanaya ka shaydaankana beeninaya ashayطaanu yacidukum alfaqr shaydaan faqri buu idin yaboohaya wuxuu odhanayaa haddaad xidho meheradaada waktiga salaada ama salaada aad tagto waxaa dhici doonta dad macaamiilah wax kaa iibsan lahaa inay ku seegaan oo kuwaa taariku salaadka ee tukanaya ay wax ka iibsadaan markaa shaydaanku naasix buu isaga kaa dhigaya inii laka la min annaasixiin buu ku odhanaya war waan wanaagaagaan ka talinayaae salaatu ljamaaca faralba maahee meeshaada iskaga tuko salaatu ljamaacu kaa reebay mar labaadkana wuxuu ku odhanayaa war salaada waktigeedu waa waasice casarka ka hor baad duhur iska tukan doontaaye dib isaga yaro dhigoo shaqaysanayo adduunyadeeda u shaqaysa baa hi sidaad weligaa noolaanaysid marka dambe dabinkaa uu kula helana mid saddexaad oo kasii daran ayuu lugta kaa suri doonaa wuxuu ku odhan doonaa waar in la jamciyaaba banaanba culimada qaarkood baaba yidhi bilaa sabab baaba la iska jamcin karaa dub isaga dhigo duhur iyo casr israaci maqrib iyo cishaayna israaci manaha arrintaasi tusaale uun waa xaqiiqo jirta waraysta dadka ka yimi qurbaha muslimiin baa jira dhulka qurbaha jooga oo 5 salaadood hal mar tukada maalintii oo dhan adduunyu ku foogan yahay habeenkii markuu soo rawuxuun buu 5tiiba dabada u qabanaya maalintii oo dhan waa shaqaysanaya man alladii nasaxahu bihada talada yaa siiyey baad u malaynaysaa talada abu mura siiyey abu mura ibliis ayaa talada noocaasiya siiyey arrinta noocaasina waxay u baahan tahay mujaahadatu nafs nafta in lala jihaaday u baahan tahay
oo nafta lagula jihaaday inaan la dhegaysan ballanqaadka shaydaanka iyo yaboohiisa oo shaki la-aan qofka iimaan kale uu garanaya inuu yahay lugooyo. الشhayطaanu yacidukum الfqr وyأmurukum bالfaxshاء والlahu yacidukum مغfiraة minhu وfadla والlahu waasic caliim. haddaad iimaan leedahay yabooha ilahay baad dhegaysanaysaa. shaydaan waxba ma haya, isagaaba faqiiraba. nafarka beriiska aad cunaysuu doonayaa inuu dhinaca kasoo fadhiisto kula cuno, wuxuu kaga maarmuu waaye nafarkaagaa beriisa. ilaahay baa subxaana wa tacaala hani oo fadligiisa uu ballaadhayay oo ay tahay inaad yaboohiisa dhegaysato oo si dhaba aad u fahamto. haddaad ilaahay subxaana wa tacaala ajiibtooda adeecdo oo adduunyadu aanay kaa mashquulin xaqa ilaah iyo sahay qaadashada aakhiro, adduunyadu inay barakoodo mooyaane inaanay waxba kaaga nuqsaamahayn. haddaad suuqa adduunye ka doorato suuqa aakhiro, cumrigaagu u dayacmayaa, ganacsigaagaasina waa khasaare. macaashka aakhiro ee adduunyadaasi ay ku seejisayna, adduunyada bani aadamkii adduunyadan soo maray ilaa qiyaamaha laga gaadhiya ay haystaan miduu kuu goyn kara maaha. wallahi inaanay laba ragcadood kuu goynahayn adduunya oo dhami. soo nabigu calayhi salaatu wasalaam uha rakcata alfajri khayru min addunya wamaa fiiha. oo labada ragcadood ee weliba sunnaha salaada subax ka horeeya ayaa adduunyada iyo waxa yaallaba ka khayr badan oo ka wanaagsan. adduunyada qofkii u horeeyay ilaa qofka u dambeeya wixii maal ay haysteen haddii la ysu keeno waa habeen xalay tegay laba ragcadood inay kuu goyso. walihaada buu sheegay nabigeenu calayhi salaatu wasalaam dadka xabaalaha ku jiraa inay jeclaysan lahayn in adduunyadii lagu celiyo si ay laba ragcadood oo qura waxa weyaan ay u tukadaan. waxaad ka mid noqonaysaa dadka adduunyadoodii ku iibsaday aakhiro ku bedeshay. noqo qof caqli badan oo yaxfadu ra'sa almaal, raasalmaalka ilaashanaya. wa ra'su maalika diinuka, raasamaalkaaguna waa diintaada. ku daya nebi maxamed sala allahu alayh wasalam, waa ka dhaqaaqi jiray nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam adduunyada marka salaada waktigeeda la gaadho, dadkeedana sidoo aan isgaranahayn oo kale ayuu noqon jiray. wahaakada kaana asaalixuuna min hadihi اlumma, taasaanay ku heleen ammaanta ilaahay iyo sacaadat addunya waalaakhira, liibaanta adduunyo iyo taakhiraba. arrinka lixaad wuxuu yahay akthir min asadaqa, sadaqada farabadi. maalkaaga waxba ka nuqsaamin mayso, waa ballanqaad uu sheegay asaadiqu lmasduuq nebi maxamed sala allahu aleyh wasalam. bal ilaahay baa kuugu barakaynaya. maa naqasat sadaqat min maal, sadaqadii maal waxba kama nuqsaamisa buuri nebigu calayhi salaatu wasalaam. ilahay baa ku barakaynaya. waxaa tusaale kuugu filan ninkii uu nabigeenu inooga warramay calayhi salaatu wasalaam ee roobka gaarka, matar khaas, kayd khaas, roob waxtar leh oo gaara ayuu ilaahay beertiisa u shubay. masracatahu faqad, beertiisoo qura ayuu ku daayay roobkaas. wasabab, sababtu waa maxay? waxa ka soo baxa beertiisaas ayuu saddex u qeybin jiray siduu isagu sheegay markii la wareystay. wax isaga iyo cidda masaariiftooda laga rabaa ay cunaan, wax beerta dib uu ugu celiyo, iyo wuxuu ilaahay daraaddi ula baxo. man ittaajir alladii yacmalu lyawma ka camalihi, waa kuma ganacsadaha maanta macaashkiisa saddex u qaybiya. sanad walba ee macaashkiisa qeyb ka mida ilaahay daraaddii subxaana wa tacaala u bixiya, allihii siiyey daraaddii u bixiya. waa laga heli karaa dadka muslimiinta dhexdooda, walaa shaka way jiraan, laakiin waa sifo aan haalib ahayn. ilaahay baa subxaana wa tacaala sadaqada kaaga dhaafaya waxyaabo laga yaabo inay mushtabahaadkii aynu ka warramayna ay ka mid yihiin oo ribxigaaga iyo macaashkaaga raacay, ama hadallo khaldan oo aad ku hadashay, been kaa dhacday markaad ganacsanaysay, laqwi aad ku hadashay. waayo xasanaadku meeshay ka saaran sayi-aadka siduu ilahay noo sheegay subxana wa tacaala. si gaara buu nabigeenu calayhi salaatu wasalaam u sheegay ganacsatadu inay ku dadaalaan sadaqadda, si ay sadaqadaasi kafaaro ugu noqoto, lagaga dhaafo
wixii khalad ka dhacay inta ay ganacsanayeen. faqaala calayhi الsalaatu wasalaam fima rawahu abu dawuud ya macshar الtujaar ina albayca yaxduruhu اllagw wاlxalif fi bacdi الriwaayaat alkadib fashuubuhu bالsadqa. nabigu calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu yihi sidaa dabciga ganacsigu yahay had ya jeeraale waxaa raaca lagwi oo intaa way hadlayaan ganacsatada badankoodu. intaa waxay isleeyihin dad wax idinka iibsado u yeedha. mararka qaarkood waxay ku hadlayaan hadalaan ganacsigoodana waxba ka tarahayn sahay aakhirana aan noqon ahayn, waana laqwigii. saasoo kale dhaar baa dhacda, ama run ha ku dhaarto ama been ha ku dhaarto. nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi sadaqad ku barxa ganacsigiina fashuubuhu bisadaqa, si khaladaadka noocaasa laydinka dhaafo. alxamdu lilah ganacsatadeenu maanta wax badan bay bixiyaan, khayr badanna way ka qayb qaataan. laakiin arrin aad iyo aada muhima baan ku baraarujinaya. arrinkaas wuxuu yahay alikhlaasu fi tasaduq. markay sadaqada la baxayaan inay niyadooda ilaashadaan oo ilaahay daraaddii ay u bixiyaan waxay bixinayaan. wa min calaamaati dalika alikhfaa. arrintaa calaamadaheedana waxaa ka mid a inuu qofku si qarsoon u bixiyo waxa uu bixinayo, si uu uga mid noqdo dadka uu rasuulku sheegay in loo hadhaynayo yowma alqiyaama. warajulu tasadaqa bisadaqa xataa laa taclama shimaalu ma tunfiqu yamiinuh. waxaa ka mid a qof sadaqad la baxay oo aada u qariyay, baalaga fii ikhfaa'iha, aada ugu xeel dheeraaday qarinteeda. ilaa nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu inoo sawirayey siduu sadaqadiisa u qariyey uu yihi ilaa aanay ogaan bidixdiisu waxay midigtiisu bixinayso. asalkuna sadaqada waa in la qariyo si hoose loo bixiyo, haddaanay maslaxa ku jirin muujinteeda. markaana waxaa shardi u ah sixatu niyati wa xusnu lmaqsad, inay niyadu sax tahay ujeedaduna ay wanaagsan tahay. oo uu isleeyahay tusaale ahaan ha lagaaga daydo, laakiin ha lagugu ammaano iyo ha lagu sheegiyo waxaad ku heshitoon aanay ahayn. waxaa aada iyo aada maanta u badan dadka sadaqada bixinaya inay aada u muujiyaan. waxaa laga yaabaa ciddii ay u dhiibeen hadday tvga ka soo dayn waayaan inuu xanaaqo, maxaa dhacay, abaarihii lacag baan maal baan idiin dhiibay, meel heblaayo xoolaan ku bixiyey, biriishkaan ku daray, wadada heblaayaan ku daray, laymana sheegin. maxaa lai sheegi waayo? shirkadaha kaleba iyo ashkaasta kaleba soo tala sheegay. hada yuuxi ilaa iraadati camali اlaakhira, iraadati اdunya bicamali اlaakhira. in adduunyo la doonayo waxaa lagu doonaya inuu yahay camal aakhiro. walaa shaka ana hada min ashirki. mararka qaarkood riyaa bay noqonaysaa qofku hadduu isleeyahay ha lagu ammaano. haddii aanu ammaanba ujeedina uu isleeyahay ganacsigaaga xayeysiis ha u noqoto ka war, oo sadaqadii iyo caawimadii xayeysiis laga dayayo. arrinta noocaasi waa shirki, waana shirkun asqar. haddaad u bixiso xoolahaaga shirkadaada dadku ha ogaadaan, bas cidna isku tusi maysid, dadku ha ogaadaan oo dabeetana waxaa kaa iibsadaan, intaasaad u bixinaysa. waa shirki asqara. camal aakhiro oo sadaqada ayaad ku doontay adduunyo. camal aakhiro haddii adduunyo lagu doonana waa shirki asqara wey, shirkigii yaraa. haddii qofka qaalibu ka noqdana waa shirki akbara. haddii camalkiisa oo dhan adduunyo uu ku doonayana waa shirki akbara. walaa yakunu hada ila min munaafiq, laa yaqacu hada miman fii qalbihi iimaan. suurtagal maaha qof qalbigiisa iimaan saxi uu ku jiraa inuu camalkiisa aakhiro oo dhan, camalka ilahay loogu dhawaado o dhan adduunyo uga jeedo. hada ficlu munaafiqiin. arrintaasi tusaalayaashay culimadu ka bixiyeen haddii qofka muslimkii uu akriyo xaalkanana u bandhigo dhab ahaan waa argagaxaya. waxaa ka mid a tusaalayaasha culimadu ay u sheegaan iraadat dunya bicamali اlaakhira, inuu qofku xoolihiisa bixiyo, wax kale u bixin maayo. wuxuu isleeyahay
maalkaagu ha kuu badbaado oo ilaahay masaa'ibta ha kaaga ilaaliyo, ama carruurtaadu ha kuu badbaadaan, ama adigoo masaa'ibta aad ka badbaadi. intaasuu u bixinaya, u bixin maayo ibtigaaa ridwaan illah, ilahay raallihaanshihiisa inuu doonayo niyadiisa kuma jirto. wala ragba fi laakhira waljanna, jacayl jannada uu hayaana ku kalifi maayo. waa arrin adduunyo, carruurtu ha kuu nabadgalaan, carruur aad heshid oo xaasku ilmaha kuu dhasho, ganacsigaagu ha taabagalo oo aada macaashtid ayuu sadaqada u bixinayaa. wuxuu u bixinayaa sadaqada qofkan uu u siinayaaba yuu ku cawriyin, cawridiisa aad ka badbaadid. sadaqaduna waa camalu laakhira, waxa uu ku doonayna waa adduunya, waa shirki. marka ikhlaaska waa in aad iyo aada loo ilaashado haddii sadaqad la bixinaayo. aad baanay maanta u yar yihiin dadka sadaqadooda qariyaa ee inaan la sheegin ku taliyaa, in la sheegana aan ogolaan. arrinka toddobaad wuxuu yahay ayuha taajiru lmuslim takhallaq biakhlaaqi taajiri lmuslim alwaarida fi lkitaabi wasunna. akhlaaq iyo dhaqan ka dhigo naftaada bar qabadsiina sifaadka iyo dhaqamada wanaagsan ee kitaabka iyo sunnaha lagu sheegay, loo sheegay qofka ganacsada ee muslimka ah. aada iyo aad baana u tiro badan yihiin. waxaa ka mid ah 4 صifaat dukirat fi xadiiثi waaxid. 4 صifa lagu sheegay hal xadiid, waynu odhan karno waa rakaa'izu tijaara, qawaacid wa asaasiyaat tijaara alislaamiya. ganacsiga islaamka ku dhisan, shareecada ku salaysan, asaasiyaadkiisay ka mid yihin. waa xadiiثu cabdillaahi bni camr bn اlcaas aladi rawaahu axmed ana rasuula اllahi qaal 4 ida kuna fiika falaa calayka ma faataka min addunya. 4 صifa haddaad leedahay, wixii adduunyo ku seegay aad isleedahay way ku seegtay, ha ka warwarin, wax ka fiican baad heshay. maa huwa anfacu wa khayru laka minha, wax ka waxtar badan oo ka fiican baad heshay haddaad 4taa صifa leedahay. 4ta صifa waa xifdu amaanatin, waa qofku inuu noqdo qof aamina oo khiyaanada waxaa la dhaha ka maran, oo qishka ka fog, oo xoolaha dadka aan damaaci ahayn ay ka nabadgelayaan, oo baadida uu helo ciddii lahayd la raadinayo o la baadi doonaya. wa sidqu xadiiin waa arrinta labaad, waa inuu run sheego. qofka ganacsatadina runta aad iyo aad buu ugu baahan yahay, lanna tuwaajihu mawaaqif xarija. qofka ganacsadaha waxaa soo waajahaya uu la kulmayaa mawaaqif aada u dhibaato badan. wuxuu arkayaa safqa ama iib macaash badani saaran yahay, laakiin waxaa ka xiga inuu been sheego, xabad beena inuu sheego ayaa ka xigta. waa imtixaamaya soo ma aragtaan? ama waxaa ka xigtaa macaashkaa qish inuu sameeyo, qish shaygii inaan laga soo siin inuu yidhaahdo waa laiga soo siiyey, shaygii iintiisii inuu qariyo iyo xumaanihiisi iyo ceebihii uu lahaa, qiimo aanu lahayn shaygu oo xagga waxtarka inuu u sheego. marka haddii xaaladaasi run uu sheego oo macaashka uu seego, ma khasaarin. runtaa macaashkaa ka qiimo badan, waayo runtu halkay gaadhsiinaysa fi dunya walaakhira macaashkaasi gaadhsiin maayo. oo maanta hadduu been ku helay macaash, berriba beenaalu noqonaya dadka dhexdooda, cidina aamini mayso, khalaas. aakhirana wuxuu noqonayaa mid ilaahay subxana wa tacaala ka fogaaday. wa xusnu khaliiqatin, arrinka saddexaad waa akhlaaq wanaag. akhlaaq wanaagga wax badan baa soo gelaya, ay ka mid tahay an yakuuna naasixan lilmuslimiin, waa noqdo qof muslimiinta wanaagooda ka talinaya, fayarxamuhum, u naxariisanaya muslimiinta, oo macaashkiisa unaan eegahayn ee wax macquulo isna wax uu ka helayo dadkan aan culays ku ahayn saaraya. dadka kale inay wax cunaan oo iyaguna wax heelaan u ogol, oon anaani ahayn. waxaa ka mida runtaasi aynu sheegnay ayaa akhlaaq wanaagga ka mida. runtana waxaa ka mida inuu si cad u sheego iimaha iyo ceebaha alaabtiisu ay leedahay.
inuu been ka sheego iska daa inuu qariyana daa waa inuu isagu sheego waxbana kuma seegayaan bal runta ayuu ilaahay wuxuu ugu barakeynaya suu sheegay nabigu calayhi salaatu wasalaam albayicaani bilkhiyaari maa lam yatafaraqa fain sadaqa wabayana burika lahuma fi baycihima wain kadaba wakatama muxiqat barakatu baycihima labada wax kala iibsanaya mid waliba ikhtiyaar buu leeyahay iibka inuu ka noqdo intay wada joogaan wali aan kala tagin khiyaaru lmajlis baa la yidhahdaa haddii ay run sheegaan mid walibana wixiis wuxuu ceeb leeya uu caddeeyo iibka waa loo barakeynaya buuri nabigu calayhi salaatu wasalaam hadday been sheegaan iimaha alaabahoodana ay qariyaan iibkooda barakada laga qaadaya waxaa ka mid ah akhlaaqda wanaagsan asamaaxa fi lbayc washira walqada waliqtidaa inuu noqdo qofku qof dabacsan hadduu wax iibinaayo hadduu iibsanaayo haddii uu cid dayn ka dalbayuu leeyahay dayntii ii gud haddii isaga dayn lagu yeesho asamaaxa waa inuu noqon qof qallafsan oo adag oo laxajeclo adag oo isaguun inuu macaash helo mooyaane dadka kale aanu naxariisano inuu u tudhahayn ama isaguuna alaabta qiimo jaban inuu ku helo mooyaane dadka ganacsatada aanu tudhahayn oo baksayo oo dhulka gelinayo inuu khasaariyo ku dadaalaya waa inaanu noqon qof qaanabaad xun waa inaanu noqon ganacsadaha muslimka ah waa inu siduu nabigeenu yihi calayhi salaatu wasalaam raxima allahu rajula samxan ida baaca waida ishtara waida iqtadaa bukhaari baa wariyey ilaahay ha u naxariisto ama waa duca ama waa waran ilaahay inuu naxariistaba nebigu uu ka warramayo qofka dabacsanaanta badan markuu wax iibinayo markuu iibsanayo iyo markuu dayn bixinayo markuu dadka daynteedii isiiya leeyahayba waxaa kaloo nebigu uu sheegay calayhi salaatu wasalaam qofka noocaasa ilaahay inuu jecel yahay ilaahay inuu ku jeclaadana waa arrin aada u qiimo badan adigu inaad ilaahay jeclaata waa sahlanta waayo waxaa ilaahay lagu jeclaadaa waa fara badan ee ilaahay uu ku sifaysan yahay wuxuu ilaahay bixiyey laakiin alamru lmuhim walacdam waa inuu ilahay adiga ku jeclaado ood samaysa wax ilaahay kugu jeclaado waxaa ka mid a akhlaaqda wanaagsan indaaru lmucsir qofka muslimka ah ee daynta aad ku leedahay wuxuu ku dayn baxa aan haysan inaanad xidhin inaanad caayin inaanad qaanabin ee aad ka sugto sida ilahay yihi fanadiratun wain kaana duu cusratin fanadiratun ilaa maysara ilaa uu helaya wuxuu ku dayn baxo waa in laga sugo gayru dalika laa yajuus waxaana ini kuma banaana mar haddaanu haysan qaanabaad iyo inaad xidho iyo inaad caydo iyo inaad dhibaato kale u geysataa kuma banaana haddii aad kaba dhaafto aad ka daysana ilaahay baa kaa dhaafi doona aljazaau min jinsi alcamal wuxu uhi nabigeenu calayhi salaatu wasalaam kaana rajulu miman kana qablakum idaa ra'aa mucsiran qaala lifityaanihi tajaawazuu canhu lacala allaha yatajaawazu cana bukhaari baa saxiixiisa ku wariyey nin ummadii hore ka mida ayaa markuu arko qof daynuu ku leeyahay oo aan waxba iska bixin karin inamadaa u shaqaynaya wuxuu ku odhan jiray war ka daaya ilaahay suu inagana inooga dhaafo khalad iyo gaf wixii aynu gallay fatajaawaza allahu canhu buuhi nabigu calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa subxana watacaala ka dhaafay xadiidka qaar waxaa ku soo aroortay camal kaleba oon iimaanka ahayn inaanu aakhiro la tegin ee camalka ilaahay naar kaga badbaadiye jannana ku geeya uu noqday indaaru lmucsir aw itajaawus canhu qofka caydha waxba aan iska bixin karin inuu ka sugo amaba se inuu kaba daayaba waa sifo aada iyo aada qaali u ah nabigeenu wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam man sarahu an yunjiyahu allahu min kurabi ywmi alqiyaama falyunafis can mucsirin aw yadac canhu rawahu muslim qofka jecel kurbooyinka iyo dhibaatooyinka waaweyne yowma alqiyaama yaalla inuu ilaahay ka badbaadiyo qofuu dayn ku leeyahay oo mucsir oo caydho wuxuu ku dayn baxaan haysan ha ka sugo amaba se ha ka daaya buuhi nebigu calayhi salaatu wasalaam ayuha taajiru lmuslim sifaadka iyo dhaqamada noocaasa oo aada u tiro badani
waa kuwa ilaahay kuu dhaweynaya, ilaahay kugu jeclaanayo. walaa shaka quluubta dadkana ilaahay wanaag inuu kuu gelinayo, iibkaaga iyo ganacsigaaguna uu ku horumaraayo. waana sifaad u baahan haddaanu ilaahay marka hore kuu dhalin naftaada inaad kula jihaado si ay ula qabsato. ayuha taajiru lmuslim ixdar alxalifa cala albayc min gayri xaaja. iska ilaali markaad wax iibinayso ama aad iibsanayso inaad dhaarato. nabigeenu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo sheegay dhaartu inay alaabta socodsiiso dadkay kalsooni gelinaysa, laakiin barakaday ka qaadaa. waa haddaad run sheegayso. haddaad been sheegaysana waa alyamiin alkhamuus, waa dhaartii qofka naarta quusinaysa. haddaad been ku dhaarato waxaad ka mid noqonaysaa 3 qolo oo nabigeenu uu yihi laa yukalimuhum allahu yowma alqiyaama walaa yanduru ilayh walaa yuzakiihim walahum cadaabun aliim. ilaahay la hadli maayo oo rabbi eegi maayo oo ilaahay u dembi dhaafi maayo, cadaab xanuujiyaana waa sugaya. 3 qolo waxaa ka mid a almunfiqu silcatahu bilxalif alkaadib, qofka alaabta uu iibinaya ku socodsiiya dhaar beena. wallahi toban baa laiga soo siiyey, lagamana soo siin, ka yar baa laga soo siiyey. wallahi intaasaan dadka ka siinayay, kamanuu siinahayn. wallahi shaygani waa noocii fiicnaa, mana aha. wallahi waxba iima saara ee khasaaru igu yahay, macaashna waa u saaran yahay. dhaar beenuu ku socodsiinayaa ganacsigiisa. 4 ciqaab baa sugaya yowma alqiyaama. 3 laa yanduru llahu ilayhim buuri mar kale nebigu. 3 ilaahay eegi maayo. 3dayaa ka mida warajulu jacala allaha bidaacatahu, qof ilaahay alaabtiisii ku socodsiinaya. mar kastoo alaab uu iibinayo ilahay buu ku dhaaranaya. laa yashtarii ila biyamiini walaa yabiicu ila biyamiini. hadduu iibsanayana dhaar buu raacinaya, hadduu iibinayana dhaar buu raacinaya. ilaahay eegi maayo buuri nabigu alayh الsalatu wasalaam. tabaraani baa wariyay biisnaadin xasan. markaa dhaarta waa in la iska ilaaliyo, aad baanay dhaartu u badan tahay maanta. ayuha taajiru lmuslim ixdar min kuli ma yakunu sababan lilcadawa walbaqdaa bayna almuslimiin. iska ilaali dhaqan kaste oo sabab u noqonaya muslimiintu inay isnacaan oo iscolaadsadaan. xasadkaa ka mid a. ganacsigaaga xasadka ka ilaali, cidna ha xaasidin. intuu ilaahay kuu qoray baad helaysaa, dadka kalena intuu ilaahay u qoray bay helayaan. haddaad ka xumaatiyo haddaad ku faraxdo waxna uma kordhin kartid, waxna kama dhibi kartid. alarzaaqu maxtuuma muqadara, horaa looga faaruqay arrinka risqiga. aduunbaa qalbigaaga dab ku shidaaya haddaad dadka xaasido, arsaaqda le aad ka xaasido, naftaadana dhibaataynaaya, ilaahay qadarkiisiina ka hor yimi, xukumkii ilaahayna raalli aan ku noqon. laakiin cidna waxba kuma yeeli kartid. waa dembigii ibliis iyo dhaqankii yuhuudda. hebel baan doonayaa suuqa inaan ka saaro, hebel baan doonayaa inaan khasaariyo. dhammaan waa kelmado ka turjumaya xaasidnimo. qofkaa nicmada ilaahay uu siiyey inay seegto aada doonayso. nebi maxamed wuxu uhi walaa taxaasadu. muslimiintu la hadlaya, dhaqan islaama, isxaasidin. waxaa ka mida waxyaabaha colaadda muslimiinta dhex dhiga albeyc cala albeyc. labadii qofoo wax kala iibsaday inaad u tagto midkood aad tidhaahdo ka noqo iibkaa, anaa wax ka fiican kaaga iibsanaya ama kaaga iibinaya. iib iyo iibsasho marba tahay waa albeyc cala albeyc, almuslim akhu lmuslim. nebigu waxyaaba uu sheegay waxaa ka mida walaa yabiic calaa beyci akhiih. asawmu cala asawmna waa la mid, inaad ku dul baayacdo. baayacaddu ama asawm waa labadii qof oo iibkii isla meel dhigay, laakiin weli aan baycii ama iibkii aan ridin, inaad u tidhahdo anaa iibsanaya. laakiin inta baayactanku uu socdo ee weli iibku aanu meel fadhiisan, qof waliba alaabta meesha taalle iib baa loo soo bandhiga, waa baayici karaa. laakiin labadii qof haddii ay ku heshiiyeen inay kala iibsadaan, welina aanay kala iibsan, oo ay isla gaadheen xaalatu sawm, inaad adigu tidhaahdo aniga iga iibi ama anaa iibsanaya, ayaa khalada. atanaajush waxaa loo yaqaan. atanaajush waxaa ka mid a suwar badan buu leeyahay ama tusaalayaal badan.
alaab aanad iibsanahayn inaad baayacdo si aad dadka u lugoyso, ama soo heshiiya qofkan alaabta iibinayo kusoo heshiiya arrintaa, ama ha kusoo heshiinina ee adigu faduuli iska ahaw naftiisa dembi la doontay. walaa tanaajashuu buuri nabigu calayh isalaatu wasalaam. arrimaha noocana maxaa loo diiday? waxay sabab u noqonayaan iyo qishka iyo waxyaabaha noocaasi, baycu lqarar iyo dhammaan waxay sabab u noqonayaan in la isnaco oo la iscolaadsado. muslimiintana waxaa la doonaya walaalo isjecel inay ahaadaan. arrinka kale wuxuu yahay ayuha taajir almuslim ixdar an tajliba ila bilaad almuslimiin ma yufsidu caqaa'id almuslimiin wa diinahum aw akhlaaqahum aw yaduru ajsaadahum. waxaad ka digtoonaataad iska ilaalisaa. dhul islaam baad joogtaay ood ku ganacsanaysaa, ilaahay ku dejiyey. inaad dhulka islaamka usoo waarido wax muslimiinta caqiidadooda wax yeelaya oo bidco caawinaya inay bidca muslimiinta ku dhex faafto, ama kufri muslimiinta sabab ugu noqon kara. uu ka mid yahay saliibku, way ka mid yihiin asuwar, sawiradu, wadooyinka shaydaanku u soo maro ifsaada caqaa'id almuslimiin, fasahaadinta caqiidada muslimiinta ayay sawiradu ka mid yihiin. maantana dad dhan oo mararkaad ag maraysa aad is odhanayso waxan waaba dad oo caag ka samaysan ama loox ka samaysan ayaa adduunyada meelo badan oo kamida meheradaha hortooda iyo gudahoodaba daadsan, oo shaydaanku dadka uu ku yidhi ganacsigiina inuu socdo ood macaashtaan bay ka qayb qaadanaysaa. waana suuradii nebi maxamed sala allahu alay wasalam uu kula dardaarmay caliyun ibni abi aalib radia allahu canhu meel kastoo uu ku arkay inuu baabi'iyo. wuxuu ku yihi abu hayaaj ilasadi alaa abcaثuka calaa maa bacahanii calayhi rasuulu اllah, wa rasuulka ilaahay wuxuu ii diray ma kuu diraa anlaa tadaca timhaala ilaa طamastahu walaa qabra mushrifa ilaa sawaytahu. nebigu wuxuu ii diray sawir kastoo aan arkay inaan baabi'iyo. waxaa kaloo ii diray qabri kasta oo qubuurta kale ka madax fiiqan inaan qubuurta kale la simo, waayo fitnat lqubuur iyo fitnat taswiir waa halka shaydaanku bani aadamka uu shirkiga kasoo geliyeyba, labada arrimood. marka sawirka laga hadlaya maanta dadku aad iyo aad bay isaga saashadaan, laakiin qofka tawxiidka si fiican u fahma, tawxiidku qalbigiisa uu galaa, yafhamu xaqa alfahmi khutuurata suwar calaa diin lmuslimiin. wuxuu si dhaba u fahmayaa sawiradu halista ay ku hayaan muslimiinta diintooda. iska ilaali wax muslimiinta diintooda kharibaya, akhlaaq darro sabab ugu noqonaya. maanta waxaynu ka cabanaa beledkeennan inamadii waxay gashan yihiin maryo ku dhegan oo dadka xumi ay ku gashadaan dhulka gaalada, oo xataa gaalada kuwa inuun sharaftooda ilaashanayaan xidhan. saraawiishan miiqa ah ee qofka lugtiisa uun leeg, miyaad aragteen gaalada madaxdooda xidhan? maafi. ganacsatadooda, aqoon-yahankooda xidhan arki maysa. yaa xidhan? wadamada qaarkood qowmuluudkoodunbaa xidha, qowmuluudkooda ayaa xidha, oo astaan iyo calaamad bay u yihiin. waddankeenna maanta dhalinyarta aad bay u jecel yihiin. iyagoo ha jeclaadaan oo gaalada ha ku dayanayaan oo ha ku fitnoobaane waxay isweydiin layaa u keenay. ee shaydaanku uu ku yihi haddaanad noocaa keenin cidi wax kaa iibsan mayso. waa ganacsatada iyaa qeybka ah. waxaa laga yaaba inay nacayaan oo awlaadooda aanay la jeclayn, haddana awlaad lmuslimiin bay ka iibinayaan. maryahan qaawan ee habluhu ay gashanayaan ee la og yahay inaan xijaab laga hoos xidhan, yaqiin ay tahay ama ay u badan tahayba, ee hablaha xidhan ninku markuu arko uu ka damqanayo, tabarujkii ilaahay uu diiday arrinkaasi inuu yahay, uu si fiican waxa weeyaan u garanayo, yaa u keenay? ganacsatada u keenay. khamaarka, waxyaaba badan oo lagu khamaaro oo ay ka mid yihiin baaluunaat, biibiilayaasha, waa khamaar. khamaarkana nabigeenu calayhi salaatu wasalaam meel fog buu gaadhsiiyey.
qofku inuu go-aansadaaba dembi laga dhigayba inuu go-aansado inuu khamaaro walow yaanu khamaarinbe man qaala liakhiihi tacaal uqaamirka falyatasadaq nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi qofka walaalkii ku yidhaahda kaalay kula khamaare ha sadaqadaysto maxay ha sadaqadaysto alimaam alkhaaabi raximah llah wuxu markuu xadiidkaa sharaxayo xoolihii uu doonaya inuu ku khamaaro gebigoodaba sadaqada u bixiyo taasaa lagaga dhaafayaa dembaabkii xagga qalbiga uu ka dembaabay iyo xagga carabka qalbigana uu ka go-aansado inuu khamaaro afkana uu ka yidhi kaali khamaarre waxaa la mid ah aflaamta xunxun inkastoo imika internetka ay dhex socoto iyadana ciddii internetka muslimiinta u keentay baa la odhan karaa waajib baana ka saaran inay la dagaalamaan almawaaqic alkhaliica ay xajbiyaan ay xidhaan si aan loo isticmaali karin waxaad ka digtoonaataa inaad iibiso wax xaaraana ama wax xalaala oo si xaaraana loo isticmaalayo haddaad hubto ama ay kula badantahay shaygaa xalaashaad iibinayso si xaaraana in loo isticmaalayo inaad iibisaa ma banaana tusaalayaasha arrintaa waxaa ka mida gabadh baa kuu timi gabadhaasi waa mutabarija xijaabkii ilaahay ku waajibiyey ma xidhna waxaanay kaa iibsanaysaa diric iyo shalmad iyo malkhamad kuwan lagu xaragoodaa maxaa kuwa cadaad iska aragtaa sidaa imika ay tahay kuwa imika ay xidhantahy siday u xidhantahy inbay kuwan ay kaa iibsanaysana u xidhanaysa laa yajuusu laka inaad ka iibso kuma banaana inaad ka iibso waayo haddaad ka iibso maxaad ku caawisay waxaad ku caawisay macsiyadii ilaahay ka xaaraantimeeyey waxaanad khilaaftay amarkii ilaahay walaa tacaawanuu cala alithmi waalcudwaan culamaa lislaamna way isku waafaqeen weliba dharka tusaaley usoo qaataan kullu mubaaxin wa yustacmalu fii wajhin muxaram laa yajuusu baycuhu shay kasta oo mubaaxa oo si xaaraana loo isticmaalayo ad hubto ama aad u badinaysa inaad iibisaan ma banaana waxaa tusaalayaasha ay sheegaan ka mid a inaad ka iibiso midhihii canabka qof khamri ka samaysanaya waad hubtaa ama way kuula badanta waxyaabihii kale khamriga laga samaynayana waa la mid waxaa ka mida dharka libaaska qaawan ee tabarujku waxa weeyaan uu ka muuqdo ugu dambeyn waxaan kula talinayaa ganacsatadeenna iyo dadka suuqa ka shaqeeya dhammaantood inay ilaahay kaga baqdaan acraadda muslimiinta suuqa waxaa soo gala dumarkeennaa suuqa soo gala hadday tahay sariibadaha cuntooyinka laga iibsado hilibka iyo khudrawaadka iyo hadday tahay suuqyada alaabooyin kale laga iibsado dhib fara badan bay dumarku ka sheeganayaan suuqyada dhibkaasoo mid af leh mid gacan leh mid il leh intaba qofka muslimkaa cirdiga muslimiintu xaaraan buu ka yahay ina dima'akum waamwaalakum waacraadakum xaraamun calaykum saasuu uhi nebi maxamed calayh isalaatu wasalaam dumarka muslimaadkaana ninka muslimka waxa waajib ku ah an yuxaafida calayhina inuu ilaaliyo oo isagu uu noqdo ka difaacaya ee cidda xumaan ula timaada kula hadasha ama faraha la soo gasha ka celinaya lianna waa akhawaatuhu waa walaalihii iimaan iyo islaamnimo oo tolnimo iyo qaraabanimo kasta ka xoog badan baa walaalaysay ninna ma jecla hooyadii oo suuqa soo gashay hadal xun in lagu idhaahdo xaaskiisa in lagu idhaahdo ma jecla hadal xun ragga ganacsatada qaarkood waxaa laga soo wariyey xaaskaygu marka ay suuqa alaab ka doonayso waxaan idhaha suuqaa soo gelina halkaa igu sug waayo wuxuu og yahay ragga qaarkood waxay suuqa kula sugayaan ayuu xogogaalu yahay marka waxaanu la jeclayn xaaskiisa dumarka kale muslimaadka anu la jeclaada maaha ninka taa samaynaya ee meheradiisa jooga shaqaalaha ah ama meesha ay wada leeyihiin waa inuu ka waaniyo ka celiyo haddii uu dayn waayana waa inuu meesha ka eriyo asxaabu rasuuli illaah guryahood iyo goobaha ganacsi
arrimaha noocaasee maanta dadka shaqaalaha qaarkood ay samaynayaan arrimo aada uga yar bay ka saari jireen cidda samaysaa guryahooda iyo goobahooda ganacsi ka caaisha radia allahu canha wa cabdillaahi bni cumar wagayrihim. dumarka hadalka xun waa in laga ilaaliyo, waa in laga ilaaliyo alkhuduuc fi lqowl, wax kala daayo in lagula hadlo hadal qalbiga xumaan gelin kara. in dumarka la sifeeyo, gabadha hortaagan inu dhahdo gacmahaagu qurux badana, alla gacmo buurbuuranida, hada laa yajuus. waa alkhuduuc fi lqowl. dumarka waa loo diiday, ragguna waa la mid, siday sheegaan culamaa lislaam. sidaasoo kale waa in indhaha laga laabo oo nadratu shahwa aan lagu eegin. waana leeb ninka sidaa samaynaya qalbigiisa uu ku dhuftay. qul lilmu'miniina yaguduu min absaarihim wayaxfaduu furuujahum. ilahay baa subxana wa tacaala sidaa yidhi. way isku xidhan yihin labadaas, inaad indhahaaga laabto iyo inaad naftaada xumaan ka ilaaliso. haddaad indhaha furtood sii dayso xumaantay ku gaadhsiinayaan. dumarka waa inaan la taaban. rag baa iska gacan qaada, rag baa iska soo jiita dumarka, ama gacanta ha qabto ama marada ay xidhan tahay ha soo qabto. wa kullu hada laa yajuus. waxaasoo dhamina ma banaana. ragguna waa inay khayro lahaadaan oo ninka xaaskiisii ama inantiisii ama walaashii sidaa lagu sameeya arrinta noocaasa waa inuu dhiidhi ka muujiyo isagoon xuduudda shareecadan aan ka baxayn, waxaan ilaahay diintiisa u ogolayna isagoon samaynahayn. arrimaha noocaasi waxay ka mid yihiin kuwa u baahan in ololo lagu qaado, wacyigelin laga sameeyo, kadibna gacanta wax lagaga qabto cidda samaynaysa. waa in la xidho, booliska loogu yeedho. anshaxumo ayuu muslimiinta la dhex jooga iyo akhlaaq daro. qofka dumarka muslimaadka hadal xun ku odhanaya suuqa dhexdiisa ama gacanta ula tegaaya. ilahay baynu subxana wa tacaala weydiisanaynaa inuu nagu anfaco kelimaadkaasi aynu maqalay dhammaanteenba, dembigeenna iyo dembiga waalidkeenna. ilahay baynu subxana wa tacala weydiisanaynaa inuu inoo dhaafo. allahuma اkfir lana waliaaba'ina wamahaatina walilmuslimiina walmuslimaat wwfiqna min alaqwaali walacmaali lima tuxib watarda ya arxam araaximiin. waayahay salaada jumce marka la eedaamo ma banaan tahay in meheradaha lagaga tago dadka aanu jimcuhu ku waajibin sida dumarka? dhib male, qofka aanu jumca ku waajibin wax waa iibin karaa, waayo dadka ay salaadu ku waajibtay salaada loogu yeedhay ayaa lagu yidhi wadaru lbayc. laakiin cidda wax uu ka iibin karaa waa cidda aan salaada jumcu aanay ku waajibin ama daruura ay keento in wax laga iibiyo, laakiin kuwa kale waxba ka iibin maayo. arrinta ku saabsan muraabaxada markaa lagu magacaabay almuraabaxa alaamir bishiraa in badan baa laga hadlay. ganacsatadana waxa weeyaan mowqica su-aalaha loogaga jawaabo in badan baa culimada su-aal laga weydiiyo ay ka jawaabeen, marka waxba kusoo celin mayna hadda. waayo su-aashan wuxuu leeyahay alaabaad ka aragtay internetka shirkada ay kuu soo qaadayso lacagna kaa qaadanaysa muddo kuu qabanaysa. kolley su-aashu waadix maaha. haddii shirkadaasi alaabta ay kaa iibinayso sida saxda ah saxiix alaabaan la arag waa la iibsan karaa, laakiin bisifa ayaa lagu iibsanayaa in la sifeeyo. haddii ay markaa sifaadkii yeelatana iibku saasuu ku laasimayaa. haddii sifaadkii marka hore lagu heshiiyey aana yeelanna qofkii mushtariga wuxuu yeelanayaa khiyaaru ru'ya, ikhtiyaar ka dhashay aragtidaas oo uu kala doortay iibka inuu sidaa ku socodsiiyo iyo inuu iibka ka noqdo mar haddii shaygu uu yeelan waayey sifaadkii iyo tilmaamii lagu heshiiyey. waayo macalimiinta dhigata madarasadaha ardayda ay lacagta ka qaadaan waxaa ka mida kuwa waalidkooda ay qaad ka ganacsadaan. lacagta ma ka qaadan karaan, weliba aanu og inuu qaad ka ganacsado. qaacido guud baynu sheegaynaa. qaacidadaasi waxay tahay
mucaamalatu man akharu maali xaraam, qofka maalkiisa badankiisu xaaraan yahay mucaamalo ma lala geli karaa in loo shaqeeyo xalaala looga shaqeeyo wax laga iibiyo wax laga iibsado. masalada noocaas ahlucilmigu waxay u badan yihiin inay bannaan tahay, waxaanay u daliishadeen yuhuud oo ribada waxaa la yidhaahdo ku tacaamuli jirtay, ilaahay uu ku sheegay inay akaaluuna lisuxt, kuwa booliga iyo xaaraanta aada u cuna. nebigu calayhi salaatu wasalaam waxna waa ka iibsaday, hadiyadoodiina waa aqbalay, waxna waa ka amaahday nebigu calayhi salaatu wasalaam. waliithmu cala almubaashir, dembiguna wuxuu saaran yahay qofka waxaasi baashiray. laakiin waracu wuxuu ku jiraa qofka noocaas oo kale ah ee akharu maalihi uu yahay xaaraam. lama jasmin karo xoolihiis oo dham inay xaaraan yihiin, lakiin waxaad ogtahay akharu maalihi, maalkiisa badankiisa inuu xaaraan yihi. waracu wuxuu ku jiraa in tacaamulkiisa la yska daayo. walihaadaba fuqahaa shaaficiya ay yidhaahdaan man kaana akharu maalihi xaraama famucaamalatuhu makruuha, qofka maalkiisu xaaraan u badan yahay in lala tacaamula waa makruuh. bal saraxa bacduhum bitaxriimi dalika, minhum alghazali raximah llah, qaarkoodna waxay sheegeen inay xaaraan tahay. marka waracu wuxuu ku jiraa, ma odhan karna waa xaaraane, laakiin qofka tacaamulkiisa in la iska daayo waracu ku jira. maa xukmu beyci tilfaaz, tv-ga in la iibiyo qalabkiisa xukumkiisa waa maxay? tv-ga khayr iyo sharba waa loo isticmaalaa, wa sharuhu akharu min khayrihi, sharkiisa ayaana ka badan khayrkiisa. dadkana waxaa badan maanta inta shar u isticmaalaysa, walihaada in laga ganacsado maaha, waa in la iska daayo. cilaaj maan furan karaa? maya, wax ganacsi loo furan kara maaha. waxa weeyaan ruqyadu waa min albidca. haddaad tabiib tahay oo tabiib ulcashaab aad tahay oo taqaano cilmiga ku daaweynta dhirta aqoon aad u leedahay, dee dhakhaatiirta kalead markaa aada la mid tahay, anaad mutatabib aanad ahayn, mid dhakhtar iska dhigaya adoon ahayn. laakiin haddii arrinkaagu ruqyo un uu yahay, ruqyo dukaamo loo furto iyo dhakhaatiir, bidaca casrigan ayay ka mid tahay. culimaduna kutubta ay ka qoreen axkaamu ruqya waa ku sheegeen. wamaca dalika almucaalijiina biruqya oo maanta caalamu lislaami ka jira, waxyaabo aada u tiro badan oo bidca leh, waxyaabo macsiyaa leh ayaa aada iyo aada ugu badan goobahoodaas. walihaadaba ahlucilmigu ay ka digeen, sida lajna daa'ima oo kale liliftaa fi lmamlaka alcarabiya asacuudiya. والله أعلم وأحكم بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.